askartii geeriyootay oo sheegtay in laga jiro mushaaraadkii xilli maanta ay banaanbax ka dhigeen iridka hore ee laga gala madaxtooyada qaranka. qodobkaasina waxaa loo faahfaahinaya wariyaheenna cabdinuur ismaan aadan calays cabdinuur honesty. qaar ka mid ah xaasaska askartii u geeriyootay difaaca dalka sanadadii la soo dhaafay ayaa maanta banaanbax ka dhigay iridda hore ee xarunta madaxtooyada qaranka. waxa ay sheegeen in 15 bilood ee la soo dhaafay aysan qaadanin wax mushahar ah. waxay xuseen in dhammaan laga soo xirtay xafiisyada dawladda isla markaana madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay albaabada ay ka soo xirteen. xaasaska askarta ayaa waxay sheegeen in gurihii ay deganayeen laga saaray, sidoo kalena hadda aysan haysanin wax raashin ay ku iibsadaan. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqeen in ay ka jawaabaan cabashadooda. madaxda dawladda Soomaaliya ayaa inta badan sheega in ay bixiyaan xuquuqda askarta u dhimata difaaca dalka. cabdinuur cismaan aadan carays, raadiyo wadani TV.